gabadhan markay indhaha kala qaado waxa ugu horeeyay ay dareento ma ahayn meesha ay joogto waxay ahayd inaysan xitaa hadli karin way soo kacaysaa waxayna isku dayaysaa inay iska furto silsilada afka ugu xiran nasiib xumo quful ayaa gadaal ugu xiran macquulna maaha inay iska furto markii ay hareeraheeda eegto waxay ogaanaysaa in dhibaatadu aysan iyada ku koobnayn oo qof walba afka laga xiray waxay isku dayaysaa inay la hadasho gabar kale laakiin ma hadli karayso waxay arkaysaa dhinaca kale nin agteeda maraya way dabagelaysaa ilaa uu keeno meel bannaan ah meel walbana waxaa ka soo muuqanaya dad afka ka wada xiran bartamaha goobta waxaa yaalla sanduuqaas oo aan caadi ahayn qof walbana waxaa kusii kordhaysa cabsida sababtoo ah cidna ma oga waxa ku jira sanduuqaas gudihiisa nin ayaa ku dhowaanaya si uu u furo inkastoo qaar isku dayay inay joojiyaan haddana ninkan ayaa u bareeraya halista wuxuuna bilaabayaa inuu furo halka dhammaan dadka kale ay dhuumanayaan dhammaan dadka indhahooda waxay ku jeedaan hal meel ah sanduuq ayaa la furayaa laakiin waxaa ka soo baxaya doofaar loo labisay dadka ayaa is eegaya iyagoo la yaaban wax ka socda meeshaan ninku wuxuu dareemayaa in sanduuqa gudihiisa wax ku jiraan kadib wuxuu ka soo saaraya hub casri ah oo nooc kasta leh dadku waxay ku yaacayaan hubka iyagoo weli aan fahamsanayn sababta loo keenay gabadhan waxay helaysaa furaha halkaas oo ay dhammaantood afka iska furayaan waxayna isweydiinayaan sababta halkan loo keenay iyo waxaan waxa ay yihiin laakiin wax yar kadib waxay ogaanayaan in qof walba loo keenay hal sabab ah waxayna bilaabayaan inay hubka urursadaan kadib waxaa bilaabanaysa in la ugaarsado sikadiisa qof ayaa wuxuu bilaabaya inuu xabadeeyo sidaa darteed dhammaantood way dhuumanayaan gabadhan waxay u malaynaysaa inay ka badbaadday xabadda laakiin mid ka mida dadka ayaa wuxuu bilaabaya meesha xabaduu ka imaanaya inuu ku ordo isagoo xabada ku ridaya laakiin isna waa la dilayaa kuwa kale weli way dhuumanayaan gabadhan ayaa bilaabaysa inay ka baxsato meesha laakiin god ayay ku dhacaysaa sidaa darteed mid ka mida nimanka ayaa ku ordaya si uu u caawiyo laakiin gabadha meel walba waxaa ka mida shub lagu diyaariyey godka si kastaba ahaatee wuxuu ka soo saaraya godka isagoo la ordaya si kadisa wuxuu ku istaagaya miino kadibna halkaas oo ninku cadcad ugu kala daadanayo gabadhu godkii bay haddana ku dhacaysaa markan iyadoo qaarka dambe oo dhan maqan yahay inkastoo ay weli nooshahay nin kale ayaa u imaanaya waxayna ka codsanaysaa inuu dilo laakiin wuu ka labanlabaynayaa kadib iskoolada intay ka dafto ayay isdilaysaa ninku wuu cararaya wuxuuna gaaraya xayndaab siliga isagoo ku weerarsan siduu uga gudbi lahaa qof ayaa gadaal uga imaanaya wuxuuna ku dhowaanaya inuu togto laakiin waa ninkii furayay sanduuq sidoo kale laba qof oo baxsada ayaa u imaanaya dhammaantood waxay ka boodayaan xayndaabka marka laga reebo ninkii sanduuqa furayay isagoo fuushan xayndaabka ayaa fallaar dhabarka loogu dhufanaya kadib wuxuu ogaanaya inuusan ka gudbi karin wuxuuna go'aansanaya inuu wararo meesha fallaarta uga imaanayso laakiin waa la dilaya waxayna ku tuuraya bamba gabceeda laakiin waxay iloobeen inay furka ka furaan bambada sidaa darteed waxay ku tuurayaan mid labaad halkaas ayuuna si xun ugu dhimanayaa ninku saddexdii kale ugu dambeyn waxay helayeen meel u muuqata meel ammaana laakiin ma aysan ogeyn meesha inay ka khatar badnayd keenta ay ka soo baxeen subermarketka waxaa jooga laba qof oo waayeela iyagoo u malaynaya in dadkan ay dhici doonaan goobta waxay ka codsanayaan inay qaataan wax walba oo yaalla dukaanka oo iyaga ay iska dhaafaan laakiin waxay u sheegayaan inaysan rabin lacagtooda waxa kaliya ay rabaanna ay tahay inay ogaadaan meesha ay joogaan waxay u sheegayaan inay joogaan gobol la yidhaahdo arkanis ninku wuxuu weydiisanayaa taleefon si uu u waco booliska markii uu waco booliska waxay u sheegayaan inay si dhaqsaa ugu imaan doonaan daqiiqada kadib gabadhan waxaa ku marganaya buskud ay cunaysay waxayna afka ka sii daynaysaa abuur taasi oo ah buskudku inuu sumaysnaa nimanku intaysan falcelin samayn waayeelku waxay bilaabayaan inay bambaqiiqa ku tuuraan waxayna la soo baxayaan mucjiso aniguba aanan filaynin waxaad damboodaa jigijaan oo 20 jira saddexdaba intay dilaan ayay meel ku qarinayaan ayeeyadu waxay arkaysaa nin xina faraantiga arooska waxayna bilaabaysaa inay ka xumaato laakiin ninkeeda ayaa u sheegay intaasi aysan dhib lahayn sababtoo ah ninkan wuxuu ahaa nin xun iyagoo nadiifinaya meesha markii gabar kale ay soo muuqato waxay iska dhigayaan dad masaakiin ah oo waayeel ah gabadhu waxay weydiinaysaa sigaar inay ka iibiyaan sidoo kale waxay weydiinaysaa meesha ay joogto waxay u sheegayaan inay joogto gobol la yidhaahdo arkanis waxay weydiinayaan su'aalo badan oo shaki ku dhaliyey waxayna bilaabaysaa inay ka shakido odaygu wuxuu dareemayaa inay gabadhu shakiday wuxuuna diyaarsanayaa qorigiisa maadaama ay ka shakiday waxay bilaabaysaa inay weerarto waxayna la soo baxaysaa qoriga miska hoostiisa ku jira waxayna tooganaysaa ninka ayeeyada ayaa soo hadhay maba rabto inay dhimato waxay ka baryaysaa inay iska dayso laakiin baryoota ma caawinayo oo way tooganaysaa ilaa hadda hal qof ayaa ka badbaaday dabiinadii oo dhan qofkan ayaana bilaabaya in ciyaartu yeelato waddo labaad magaceedu waa crystal haddii aad xasuusatay bilowga sheekada waa gabadhii webiga agtiisa fadhiday crystal dhab ahaantii waa qof aad u awood badan feejigan sidoo kalena fahamsan sababta halkan loo keenay markii ay u soo baxdo bannaanka waxay arkaysaa gaari yaala subermarketka hortiisa dhankiisa ayay u dhaqaaqaysaa laakiin waxay ka shakinaysaa taarigada gadaal uga xiran waxayna ka qaadaysaa taarigada beenta kadib gaariga ayay baaraysaa waxayna arkaysaa meel walba in bumba looga xiray si kadis waxay maqlaysaa cod ka baxaya raadiyaha waxayna bilaabaysaa inay dhumato durbadiiba waxaa soo muuqanaya daroontaasi oo lagu baarayo subermarketka si lama filaan xabad meel ay ka timi aan la gelin ayaa ku dhacaysa daroonta wayna soo dhacaysaa ninkii soo riday ayaa soo muuqanaya isagoo sii jijabinaya markii uu u dhaqaaqo dhanka gaariga crystal ayaa joojinaysa iyadoo u sheegaysa inuusan gaariga u dhowaan markii hore cadow ayuu u malaynayay laakiin marka ay tusto bumbooyinka gaariga ku xiran ayuu aaminayaa waxayna u sheegaysaa inay doqonnimo ahayd inuu soo rido daroonta waayo waxay rabtay inay damin u dhigto dadkii ka dambeeyey dhibkaani oo dhan waxay bilaabayaan inay lugta ku safraan gari wuxuu u sheegayaa aragtiisa ku saabsan sababta ay halkan u joogaan iyo sababta loo ugaarsanayo wuxuuna u sheegayaa crystal inay jiraan koox la yidhahdo liberal enlighted oo dadka ugu ciyaarta sida geemka oo kale laakiin crystal dhab ahaantii ma aaminsana waxa uu sheegayo gari saacado badan oo safra crystal waxay dareemaysaa in tareen uu soo socdo waxayna u sheegaysaa inay ordaan si ay u fuulaan tareenka waxay ku guulaysanayaan inay fuulaan tareenka gudihiisa waxay kula kulmayaan dad carab oo muhaajiriina
laakiin gari ma aaminayo isagoo u malaynaya inay yihiin ugaarsadayaasha wuxuu ku qabanaya qoriga iyagoo murmaya si kadisa tareenka ayaa istaagaya waxayna arkayaan ciidan bannaanka jooga way ku khasbanaanayaan inay hubka iska qariyaan ciidanka ayaa baaraya dadka muhaajiriinta ah halka gari uu u sheegayo inay yihiin Amerikaan dadkaana aysan ahayn muhaajiriin oo ay yihiin dilayaal nasiib xumo askartu ma fahmayso luqadda uu ku hadlayo gari wayna ka dhaqaaqayaan si kadisa waxa luqadiisa kula hadlaya mid kamid ah kuwa iska dhigay muhaajiriinta kadib gari wuu naxaya wuxuuna askarta u sheegay ninka inuusan ahayn muhaajiriin oo uu dilaayahay laakiin askartu haddana way iska indhatiray oo ma fahmayso waxa uu sheegay gari si kastaba haatee gari wuxuu bilaabay inuu la dagaalamo ninka waxaana boorsadii ka soo daadanaya bambooyin badan kadib gari ganjada intuu bumbada ka saaray ayuu u gelinaya ninka meesha laga dhaanteeyo qof kastana wuxuu bilaabayaa inuu dhunto kadib ninka bumbada ayaa ku qarxaysa inkastoo uu isku dayay inuu iska saaro Crystal waxaa loo kaxaynaya xerada qaxootiga laakiin uma jeedo gari aaway waxaaba igu dambeysay markii uu qaraxa ka dhumanayay si kastaba ahaatee Crystal xerada qaxootiga ayaa la keenaya halkaas ayaana lagu wareysanayaa waxay u sheegaysaa inay tahay Amerikaan la soo afduubtay ayna wacaan safaaradeeda si ay waddankeeda dib ugu noqoto daqiiqada kadib waxaa la keenayaa nin la yiraahdo Don nin kale oo kamid ah dadka la ugaarsanayo isugu xagee ku arkay ninkan waxaan u maleynayaa inuu yahay ninkii biskoolada siinaya gabadha bilowga sheekada si kastaba ahaatee qolada qaxootiga waxay u sheegayaan inay waceen safaaradooda goordhuna loo imaan doono labadoodu waxay sugayaan in loo yimaado markii Don uu damcay in la wadaago isla aragtiyihii ninkii kale si kadisa waxaa soo muuqanaya nin ka socda safaaradda Mareykanka Don aad ayuu u farxayaa waxayna bilaabayaan inay raacaan ninka kadib waxaa aragnaa iyagoo kaftamaya ninka wuxuu bilaabaya inuu weydiiyo su'aalo badan oo ku saabsan siday halkan ku yimaadeen iyo inay garanayaan dadka halkan keenay Crystal waxay bilaabaysaa inay ka shakido ninkan waxayna ka tuuraysaa gaariga gadaal ayay gaariga u soo celinaysaa waxayna madaxiisa marsiinaysaa taayirka Don ayaa ku qeylaya wuxuuna weydiinayaa sababta ay u dishay ninkan laakiin Crystal waxay jeebkiisa ka soo saaraysaa biskoolada waxayna furaysaa gaariga gadaashiisa waxaa ku jira gari ninkii aan waayay meel uu ka baxay ilaa waa nin mar hore la cunay daqiiqada kadib Crystal waxay arkaysaa doofaarkii la bisnaa ee sanduuq ka soo baxaya bilowga sheekada waxayna Don u sheegaysaa inay u socoto meesha ciyaartu dhan ka bilaamatay oo ay soo afjari doonto ugu dambeyn waxaan aragnaa dadkii waxaas oo dhan ka dambeeyay dadka ciyaarta dhiigga badan abaabulay waxay ku nasanayaan godka ay ku dhuumanayeen sabab la xiriirta khibrad la'aan xagga hubka ah waxay haystaan askari rugcada ah oo la yiraahdo Dal si uu uga caawiyo hubka kadib mid kamid ayaa banaanka u baxaya si uu soo kaadiyo markii uu damco inuu xaajaysa guto Don ayaa soo muuqanaya si uu u mashquuliyo Crystal ayaa gadaal uga imaanaysa halkaas ayayna ku dilaysaa kadib kuwa gudaha ku jira ayaa maqlaya sharqanta iyagoo naxsan ayay isdiyaarinayaan laakiin si lama filaana doofaarka ayaa soo galaya kadib fuloonimadooda waxay bilaabayaan inay xabadeeyaan halkaas ayayna ku dilayaan doofaarka gabadhan ayaa aad uga xun inay dileen doofaarka intay ku murmayeen adaa dilay isagoo baxsanaya waxay ka tooganaysaa lugta kadib waxay xabadka uga dhufanaysaa Dal rasaasta ayaa ka dhamaanaysa markii ay aragto falaar lagu soo ridi rabo waxay ku boodaysaa gabadha waxayna falaarta ka gelinaysaa caloosha kadib qorigan wuxuu u dhaxeeyaa iyada iyo ninkan hadba kii looga hormaro ayaa dhimanaya nasiib wanaag way uga hormaraysaa laakiin wuu ku qabsanaya wuxuuna ka saaraya qasnada ka hor intuusan ka saarin xabad ayaa ku taagneed halkaas ayayna ku dilaysaa kadib markii ay dhammaantood ka adkaatay waxaa imaanaya Don waxayna u sheegaysaa in ay jirto su'aal uu rabo inuu weydiiyo gabadha nool maadaama uusan jaanis u helin ninkii gaariga ay ku dilaysay wuxuu weydiinayaa sababta ay u sameynayaan waxaan laakiin waxay ugu jawaabaysaa inay u qalmaan in la ugaarsado maadaama ay yihiin reer baadiye kadib Crystal waxay damcaysaa inay toogato laakiin Don ayaa u sheegay inay tahay gabar oo ay u naxariisato Crystal waxay weydiinaysaa inay u naxariisato maadaama ay tahay gabar laakiin maya ayay ku jawaabaysaa halkaas ayayna ku tooganaysaa laakiin Don ayaa aad uga xumaanaya si kadisa cod haweeney ayaa ka soo baxaya raadiyaha kaasoo Don u sheegay inuu toogto Crystal laakiin fursad ma siinayso waxayna ku qabanaysaa biskooladeeda Don wuxuu u sheegay inuusan aqoon naagtan raadiyaha ka hadlaysa oo ay isku dhinac yihiin sidaa darteed biskoolada ay ka leexiso laakiin Crystal waxay u sheegaysaa inuu hubka dhigo si uu u caddeeyo inuusan ahayn ugaarsadayaasha Don wuu ku madax adeegaya wuxuuna isku dayay inuu toogto laakiin way kala hormaraysaa halkaas ayayna ku dilaysaa kadib waxay u tagaysaa Dal waxayna weydiinaysaa qofka u taliya iyo meesha uu joogo inkastoo uu ka dhaga adeegay inuu u sheego ugu dambeyn uu u sheegaya wuxuuna u sheegay inay tahay naag la yiraahdo Athena wuxuuna siinayaa tilmaamo sax wuxuuna sidoo kale uga digay inay Athena aysan ahayn qof iska caadi ah oo si fudud lagu dili karo maadaama ay tababaranayso 8 bilood oo buuxda Crystal intay u mahadcelisay ayay dilaysaa si loo fahmo sababta waxaan oo dhan u dhaceen waa inaanu dib ugu laabanaa halka sheekadu ka bilaamatay hal sano ka hor Athena iyo saaxiibada taajiriinta ah waxay ku wada sheekaysanayaan group chat iyagoo ka wada hadlaya ugaarsiga dadka kadib markii ay fariimahoodii la jabsaday oo internetka lagu faafiyay dadkoo dhan waxay ku eedeeyeen inay si qarsoodiyaha u disho dad aan waxba galabsan si ay ugu ciyaadho shaqadeedu way burburaysaa sumcadeedana way lumaysaa halkan ayay aatin samaynaysaa go'aan nolosheedii oo dhan bedelay kadib waxay bilaabaysaa inay ugaarsato dadka faqiiriinta khaasatan kuwa internetka uga faafiya xumaanta waxaana aragnaa iyadoo dooranaysa dadka ay ku ciyaari lahayd laakiin khaladka ugu weynaa ay gashay ayaa ah inay dooratay Crystal kadib diyaaradda ayay soo saaraysaa waxayna keenaysaa meel baadiye ah sidaas ayuuna ku bilaabanaya ugaarsigu waxaanu dib ugu soo noqonaynaa waqtigii la joogo hadda Crystal waxay bilaabaysaa inay gasho guriga markii ay si lama filaan sameecadda uga maqasho codka Athena waxay u sheegaysaa inay biskoolada geliso sanduuqa haddii kale ay soo kicin doonto qoryaha waardiyaha guriga Crystal si taxaddar leh ayay guriga u galaysaa waxayna ku arkaysaa guriga dhexdiisa sawirkeeda iyo sawirada dadkii la ugaarsanayay kadib waxay jikada ugu galaysaa Athena oo quraac iska karsanaysa waxayna bilaabayaan inay wada sheekaystaan Crystal ma oga qofka ay tahay sidoo kalena waxay u muuqataa Athena inaysan ogeyn qofka ay tahay Crystal waxay weydiinaysaa sababta ay u soo afduubatay si ay u disho Athena waxay aaminsan tahay Crystal inay tahay qofkii internetkeeda jabsaday oo xogteeda
bannaanka keenay sidaa darteed ayay ugu dartay dadka ay ugaarsanaysay dabcan wuxuu ahaa khalad aad u weyn waayo qofka dhabtaa ee jabsaday aatiin internetkeeda wuxuu ahaa qof kale oo magaca crystal isticmaalayay sidaa darteed aatiin waxay ku khaldaneen inay crystal soo dhex geliso sheekadan laakiin ma la joogo meel laga noqdo hadda sidaa darteed hadallo dambe faa'iido ma lahan labadooda waxay ogaanayaan hal shay in mid ka mid a si nabada uu guriga uga bixi doono dagaal dheer kadib crystal ayaa ku adkaanaysa dagaalka ugu dambeyn crystal quraac dhigla intay cunto oo labisato ayay diyaaradda taajiriinta fuulaysaa halkaas ayuu filimku dhammaanayaa adiguna muuqaalka ayaa leeg saaraysa